Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada barnaamijkeennii qisooyinka nolosha. nin muslin ah oo aad uga adag diinta ayaa hadda ka hor soo raacay diyaarad. markii muddo hawada lagu jiray ayaa ninkii waxa u timid gabar ka mid ah shaqaalaha diyaaradda oo khamri wareejinaysay. kadibna waxay ku tiri, khamriga ma ku siiyaa? laakiin ninka oo ahay qof uu ilaahay siiyey iimaan ayaa yidhi, maya uma baahni, waad mahadsan tahay. xoogaa kadib misna waxa u timid isla gabadhii oo wada dhaladii khamriga, laakiin waxay kala kulantay isla jawaabtii hore oo ahayd waad mahadsan tahay, uma baahni. muddo kadib gabadhii oo la yaaban ninkan diidan khamriga qaaliga ah ayaa ku tiri ninkii shaqaalaha diyaaradda u sarreeyey, ninkan wuxuu iga diiday sharaabkan waa intaas oo kaa yeela ugey adiga. ninkii baa soo qaaday dhaladii khamriga ahayd. markuu u keenay ninkii muslimka ahaa ayuu ku yidhi, mahadsanid, uma baahni. markaa buu yidhi, ninyow maxaad ku diidaysaa? miyaanad ka helin adeega diyaaradda? ninkii oo caqiil ahaa baa yidhi, orodoo sii khamriga duuliyaha diyaaradda. markaa buu yidhi ninkii shaqaalaha ahaa, ma waalan tahay? sideen u siiya duuliyaha khamri? waajibkiisa ayuu gudanayaa. hadduu cabo khamrigana diyaaradoo dhan baa burburaysa. kadib ninkii muslimka ah ayaa yidhi, haddaba aniga muslim baan ahay, waxaan gudanayaa waajibkayga ah inaan caabudo rabbigayga. haddii aan cabo khamrigana nolosheeda oo dhan ayaa burburaysa adduun iyo aakhiraba. fadlan haddii aad qisadan wax ka faa'iiday inoogu reeb dhanka kommentiga, siina sheergarey oo la wadaag asxaabtaada.